xaafadda Balaasa oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa ka digay in cilbiyood ay leedahay dawladdu oo ku yaala xaafadaasi uu ka sii baxayo gacanta dawladda isla markaana uu gacan galay dad shacaba waxa kale oo ay cabasho ka muujiyeen biyeelaan ay sheegeen inay soo footartay xaafadaasi Balaasa guddidan xaafaddu waxa ay ka dalbatay wasaaradda biyaha iyo khayraadka iyo wakaaladda biyaha ee Burco inay shacabka xaafadaasi ay xaq u leeyihiin inay biyo helaan isla markaana waxa ay xaraan ka dhigeen in cid gaar ah la siiyo hantida qaranka waxaanay ku eedeeyeen in culimada timaweyntu ay iyagu gacanta ku hayso ceelkan oo ay isku hortaageen shacabka ayna ku xidheen deer ay ku xidhanayaan biyaha ceelkaasi ka soo gudbinaynaa dacwad iyo makaranaysa xabatin aanu leenahay oo xaafadu leedahay qolada amga uu tilmaamay Saciid culimada ahi ceelka dee jaar bay laahaayeen jaarkii ay ahaayeen ma qiimayne intii ceelku ku fadhiyay tiro kastaba ha gaadheen guudkay ka soo xidheen gudahay soo gashadeen oo beertoodii yarad bay ku soo dhex dareen haddaba waxaanu leenahay dee iyagu mujtamacay ka mid yihiin aanu dacweynayna biyaa nala leh hanala cabbeen laga riixan maayo balse asbaabtay ku riixanayaan dawladda u taallaa faahfaahin mayne dawladda faahfaahin ka bixida soo sirta iyo wax walba og waxaanu leenahay shakhsi gaar ah waa ka xaaraan in shakhsi danta Soomaaliland laga fuuliyaa shakhsi looga fuuliyaa waa xaaraan ogolayn ama islaamka ogolayn weeyaan mar haddii riigad la sameeyay oo dadka shacabka loo sameeyay ay tahay waxa qurux badan in qof kasta oo muwaadina oo xaafadda degan biyaha wax ka cabo ma aha in oo meel dawriya ku xidho yiraahdo kanaan cabaya ceelbiyoodkan oo loo yaqaano ceelka Shiinaha oo ah ceelbiyood ku yaala bariga magaalada Burco ayaa waxa uu ka mid yahay ceelbiyood ay horay u dhagax dhigtay siyaaskiisa hore dawladii hore ee Soomaaliya waxa kale oo uu ka mid yahay ceelkan ceelashii dawladda Imaaraadka Carabtu ay ugu deeqday xukuumadda Soomaaliland kadib safarkii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Shiilaan uu ku tagay dalalka Imaaraadka Carabta kaasi oo ka mid ahaa ilaa iyo 8 ceel oo laga dhagax dhigay magaalada Burco ee gobolka Togdheer geesta kalena Axmed Wali Cabdilaahi Yuusuf oo u hadlayay culimada timaweynta ee gacanta ku haysa ceelkaasi ayaa waxa uu meesha ka saaray in ceelkan la siiyay culimada balse ay gacanta ku hayaan ilaalintiisa heshiisna ay ku galeen wasaaraddu inay xifdiyaan oo ay gacanta ku hayaan ceelkaasi bulshada iyo dalka iyo dadkaba waxa tarayna waxa way dhulkayaga inaanu bixino oo dadku biyo ka helaan weey waanu bixinay waa laga helay biyo waan baylahay ka keenay gacantaanu ku haynaa sidii halkaan nimankii carabta ahaa ee qoday ay ugu qodeen weynaha dhamaantiina waa wada arkaysaa cid kaliya oo ka cabanaysa ma jirto anagu waxaanu sugaynaa heshiiska aanu dawladda wada galay anagu marnaba ka biximayno sidii buu u qoran yahay haydaanka uu ceelku galay maaha haydaan dawladda iyo dadweynahaba de ka qaadayay waanu xifdinay oo waa ilaalinay annaguna culimaanu nahay biyaha waa loo wada baahan yahay cid waliba way u baahan tahay ilaahay baa wuxuu yidhi wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin sidaa aawadeed bulshadaa cabanaysaa ma aha bulsho eeriyadan degan bulshadaasi waxa weeye waxaanu aaminsannahay dad la soo abaabulay oo niman dan kala wata ay soo abaabuleen sidoo kalena isuduwaha wasaaradda biyaha iyo khayraadka ee gobolka Togdheer Rasheed Faarax Cabdi oo isaguna cadeeyay in ceelkan yahay hanti qaran oo aanay jirin cid la siiyay balse waxa uu carabka ku dhuftay inuu jiro heshiis ay xiftintiisa culimadaasi loogu xil saaray waa ku maadsantiin TV-ga qaranka ilka casay sabriye xogogaalnimada awluuliseen ee ka wuluuliseen ceelka timaweynta laga qoday waxaanu haynaa in ceelkaasi ceel dawladeed tahay uu yahay ceel ummadeed yahay ay wasaaraddu gacanta ku hayso maamulayso ciddii meesha laga qoday heshiisyaha jira lala galo dadka meelaha beelaha leh lala qodo heshiisyadaa lala galo wax ka duwan oo imika kale oo dheeraada oo annagu aanu haynaa gobol ahaan ma jirto dhinaca kalena maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Burco Ibrahim Yuusuf Diiriye oo isaguna ka jawaabay baahida biyaha ee xaafadaasi ayaa cadeeyay in wakaaladdu ay qorshaysay in bisha Julaay ee fooda inagu soo haysa ay ceelkan ku daraan hanaanka biyaha ee magaalada Burco isla markaana waxa uu cadeeyay in ceelkan ay u qoonsan yihiin dawladda waxaanu meesha ka saaray inuu jiro wax heshiisa
oo cid gaara loogu xilsaaray ceelkaasi inay gacanta ku hayso oo ay wakaaladda biyuhu mas'uul ka tahay ceelasha ku yaalla gudaha magaalada Burco. annagu ma garanayno hadalka kale meesha uu ka soconayo ma garanayno laakiin waxa weeye ceelku waa hanti qaran madaana iskale meel lagu bixiyay oo dadku waxay leeyihiin oo lagu waxaynayeen ceelka waa la bixiyay meel lagu bixiyayna annagu garanayno wasaaradna kaba heer gobolna kaba hayno mid heer qaranna kaba hayno ceelka meel lagu bixiyay annagu mana hayno sida ugu dhaqsaha badan ee bisha 7 sida ay tahay systemka magaalada waan ku soo xireen waxa kale oo daboolka ka qaaday inay gacanta ku hayaan wareegta ay wasaaradda biyaha iyo kheyraadku ay ka soo saartay ceelashaasi dawladda oo uu ka mid yahay ceelkani oo ay wareegtadaasi farayso inay ceelasha dawladda ay gacanta ku hayso wakaaladda biyuhu muranka ceelka biyoodkan oo ka mid ah ceelasha dawladda ee ku yaala magaalada Burco ayaa waxa uu soo baxay kadib markii ay culimada Timaweyntu ay dayr dusha kaga xidhay goobtii uu ku yaalay ceelkaasi taasi oo ay ku tilmaameen inuu ku yaalo dhul ay leedahay culimadu arintana waxa ay shaki gelisay shacabka iyo hay'adaha dawladda ee biyaha u xilsaaran qaarkood oo shaki geliyay inay gacanta ka bixi karo ama ay suuragal tahay inuu gacanta ka baxo dawladda ceelkaasi